Soomaaliya waa inaan qurux badan oo nin waliba doonayo. Soomaaliya waxay maanta u dhuratay Sayid Maxamed Cabdullaah Xasan sidii uu yiri yamyamiye qadaad weyn baa la iiga taaglaayay. mid waliba wuxuu rabaa ama dalin yar ha noqdo ama mid awal hore aan kugu soo dhicin jirin ha noqdo inaanad fikir yeelanin. sidoo u fikiro aad u fikirto, sidoo u heeso aad u heesto, sidoo u raqaso aad u raqasto, sidoo u dhaanso aad u dhaansto oo adiga kuusan arkahaynin qof bilaaadmiyo aragti leh. Soomaaliya markaas sidaas may ku sii jiri kartaa. mucaarid iyo muxaafid, qurba joog iyo qaran joog hal shay baa inoo yaala. waxaynu u baahannahay qabkii Soomaalida inaynu soo celino walaalayaal. Soomaaliya dad qableh bay ahaan jirtay 60kii waxaanu u heesaynay herar iyo hawaas wajeeray calanka hoo abwaaninta Soomaaliyeed waxay ka gabiyeen booriga Suez diyaaradii kama qamaadaan kanaal Suez ninkii Ingiriis ahaa ma mari karo waa nin reer miyo Soomaaliya ku gabiyay markii Ingiriiskii loo turjumo leeyahay war ninkani muxuu leeyahay wuxuu leeyahay kanaal Suez waa lagaga adkaaday Ingiriiskii oo yaa kaga adkaaday Jarmalkii iyo xulufadii Talyaaniga war ninka bal soo qaaday buu yidhi kanaal Suez buu markab ku qaadu geeyay oo Soomaalidu uu sheeg inaan joogo aan wali meeshii la igaga adkaanay Soomaaligu wuxuu ku gabiyay dhulka muunadii waa makiya guri Madiinaad madadaaladii waa inaad Yurub mushaaxda meeqaan jabtii waa intuu madowgu jooda waxaad moodaysaa inuu tagay Soweto iyo dhulka ninkaasi ama France iyo dhulka maaragtay quruxda badan ee Yurub meelaha loo dalxiis tago aragtidiisu taas ay ahayd uu Soomaali u jahaynayo waxa lagu bedelay laga yaabay walaalaheen mucaaradkuna hayga raalli ahaadaane aad xoojinayaan wala in cunaya wala in liqaya wala in boobaya warka kacay uqdadii ururta qofkii Soomaaliga ahaa inuu noqdo waxaan leenahay maya dad baan leenahay ummad baanu nahay waagi halganka hadii aanu qablahayn ilaa maanta waanu leenahay